السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalay Soomaaliyeed maanta kulay waxaan hadda ka hor ka hadlay oo inta badan aadan iga baranin laakiin hadda ka hor aan ka hadlay baan rabaa mar kaleeto inaan idinku baraarujiyo oo aad ila qaadataan hadii Ilaahay idmo. waxaan jeclaan lahaa dadkiinan page-kayga ku cusub haddaadan hore ula socon inaad like-tii maaragtay share-ka subscribe-ka intaba aad saartaan sababtu waxay tahay waxaa jira waxyaalo fara badan oo qalbigayga niyadeyda iyo maskaxdayda intaba ku jira oo aan jeclahay inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago. waxaa jira walaalo fara badan oo adduunka dacladiisa kala jooga oo iyaguna meelo kale ku dhibaataysan oo aanun meediyada saxaafadda iyo dawladahu intaba aan ka hadlin oo aan jeclahay codkooda inaan dibadda soo dhigo ayaa igu kaliftay inaan maaragtay cajaladahan aan duubo idinkuna aad in leeyahay inaad iga dhinac istaagtaan hadii Ilaahay idmo. dadku intooda badan waxay ka cararaan lacag iyo waxa anigu hadda lacag idinka dooni maayo idinka dooni maayo dadna hadda lacag u dooni maayo laakiin inta badan waxaan u hadlaa dadka maxaabiista ah ee xiran sharci darrada ku xiran waxaad ugu barateen inaan ka hadlo inta badan Cabdimalik Muuse Coldoon waxaan rajeynayaa insha Allah inuu Ilaahay ka soo badbaadiyo waxaan موسى إن شاء الله أن كل تلين لها أنت مدحتها iyo dadka u dhaqdhaqaaqa isimada iyo xisbiyada inta waxaan ku oran lahaa in Cabdimalik xorriyadiisa uu helo sida ugu dhaqsaha badan la hadii Ilaahay idmo. waa bil Ramadaan dadku waalidiintiis iyo ilmaha uu waalidku yahay yani caruurtu laftooda xuquuq bay leeyihiin in ay waalidkood helaan ama diid ama yeel Soomaaliland waxay ka tirsan tahay Soomaaliya ilaa ay hadeertaan Soomaaliyana waxa ay saxiixday shuruucdan ama lagu xakameeyo shuruucdan child convention bay saxiixday marka xuquuqda caruurta ayaa priority iyada ayaa meesha ugu horeysa marka Cabdimalik caruurtiisa ayaa xuquuq u leh in ay aabahood helaan. okay markaan intaas taa uga haro waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo dad fara badan oo waxaa jira xabsiyada adduunka kale ku xiran waxaa kamid dad burcadbadeed lagu qabsaday ama burcadbadeed ba aanan ahayn oo ahaa kalluumaysato oo meel cidla inta laga helay la iska qabsaday lagu xukumay maaragtay wadamadooda intii la geeyeen ay ku xukumeen. waxaa jira dhacdooyin hadeertan soo cusboonaaday dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta Mareykanka ku nool ilaa iyo 70 qof sida wararku isu soo gaargaarayaan 70kaas qof waxa laga soo qabtay xeebaha Soomaaliya maraakiib Mareykan ayaa soo qabatay maraakiibtaasina waxa ay geeyeen dalka Mareykanka qaarkii ay dileen xabado iyo rasaas ku dhufteen ama kuwa kale tooriyaab laftooda inay hubooteen ay burcadbadeed ahaayeen laakiin siday ahaataba waxa laga qabtay meelaha u dhow xeebaha Soomaaliya inkastoo Mareykanka uu ku andacoonayo inuu ka soo qabtay qadka internationalka oo ay adduun weynaha dhanba ay wada leeyihiin oo 20 nautic mile 200 nautic mile oo badda gudaheeda halkaas ayaanu ka soo qabanay bay leeyihiin qaarkoodna rasaas bay isweydaarsadeen qaarna kalluumaysata iska ahaayeen doontii un baa la fogaatay meeshaas baa laga qabsaday. waxaa jirta kuwa kale oo hore hadda Hindiya lagu haystay qaarkood la soo fasaxay oo dawladda Soomaaliya ay juhdi badan gelisay oo ay soo saartay. kuwa aan raba inaan soo xusuusiyo hadeertan waa kuwa Mareykanka jooga 70 weey qiyaastooda waxaana lagu xukumay shuruucda dalka Mareykanka u yaala. haddaba waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo yani dad laga soo qabtay xuduudaha Soomaaliya oo inta Mareykanka la geeyay sharci Mareykan lagu xukumay xaq adduunka sheegi maayo yani ma jiro yani international law oo burcadbadeed international law يعني هدي اللي حكومة دتك سيتي وحي أهيد إن لو حكومة دلك لجا سو قبتي حيبه لجا سو قبتي قانون كون لسان بيهيد
in lagu xukumo laakiin intay ka haysteen bay waxay geeyeen wadankii iyaguna maxaa weeye waa hadal ku taag weeye afkii kuwii xeebaha macnaha maraakiibtoodii warkii ay sheegeen askartii warkii ay sheegeen baa lagu xukumay afka wax cadeyn ah lama hayo hubkii ay wateen lama hayo fara lagama qaadin DNA lagama hayo wax absalan ba lagu hayo ma jirto macquul in qaarkood lagu hayo video kameradaha oo laga duubay oo marka maraakiibtooda dagaalka ah qaar ay lahaayeen kuwa laga duubay waa macquul laakiin intooda badan waxa lagu haystaa afduub waxay u afduuban yihiin dalka Mareykanka iyo dawladda Mareykanka biyo afduubay dadkaas waxay ku xiran yihiin xaq darro haba ahaadeen xitaa ha ahaadeen burcad badeed Soomaaliya xataa ceeb bay nagu tahay inay burcad badeed ay soo baxaan laakiin ogow yani annagu hadaan u dhaqanno wixii qalbigeena iyo niyadeena ay nasiiso waa wareer qofka bini aadanka ah waxa idin kala celiya waa sharci iyo shareeco shareecadu lafteedu waa qaanuun shareecadan macnaha marka nabiga kaleey salaatu wasalaam loo tago oo wax ku xukumayo sharciga diinta quraanka ee kitaabka waxa ay leedahay buu ku xukumi jiray kun xukumaya laakiin ma aha macnaha qof intaad u tagtid aqligiisa iyo maskaxdiisa kugu xukumo macquul ma waxa jira dhalinyaradaas waxay ku xiran yihiin dadka hadeertaan waa weynaaday waxay ku xiran yihiin si xaq darro ah qaarkood waxa lagu xukumay xabsi daa'in oo aan waliba lahayn ka soo noqosho yani inta ay meeshaas ku jiraan halkaas bay ku dhimanayaan iyagu un baa duugay qalaas qofkaas waana qof aynu ka sabarnay oo ay u dhamaatay waxaan rabaa walaalkayga daawanaya ama walaashayda ay daawanaysa arrinkan inaynu kor u qaadno oo ay gaarto madaxdeena iyo dadka horjoogayaasha inoo ah siyaasadda rabta hayso ama ka soo horjeed farmaajo iyo khayr ama raacsano waa inaan fiirnaa danaha dadka Soomaaliyeed iyo dariiqa aan u mari karno maanta dariiqa aan u mari karno waa farmaajo iyo khayr iyo adduunka caalamiga ah halkaas aynu kala shaqeyno maalinta ay iyagu ay waqtigooda ay ka tagaan hala gaaro iyaduna choice kale taad leedahay laakiin dadkan hadda doorashay ku yimaadeen waa dad meesha jooga fadhiya marka isku turtuurka inaan ilmahan ama dhalinyaradan ama muwaadiniinta Soomaaliyeed yaani dhexdeena ka siibanin soo waxa aan rabaa waxay tahay inaynu ka midowno walaal macaan walaashay macaan inaad share garaysid oo ay gaarto madaxdeena waxaan jeclahay xitaa baarlamaanka hadday ay maqlayaan xildhibaanada iyo wasiiraha walaalayaal motion baad qori kartaan oo ku saabsan oo ah yani arrinkan xaaladda laga yeelayo waxaad motion ka qori kartaan xitaa in dadka ilmaheena iyo muwaadiniinteena sidan u galaya inaanay sii joogin wadanka motion baad ka sameyn kartaan xarunta ugu weyn ee sirdoonka Afrika oo dhan bay waxay ku leeyihiin Africom oo Mareykanka ah bay waxay ku leeyihiin Soomaaliya Muqdisho Jazeera wax aqliga gali kara maaha qof bin aadan ah oo muslim ah oo Soomaali ah oo wadanka u dhashay xitaa ma agmari karo meesha iyagii baa xirtay waxaanu ku gun ku noqonay oo aanu ku duleysanahay wadanka iyaga dhexdiisa ciidiyada dhexdeeda baan ku dulni ku nahay taas wax la qaadan kara maaha ma ogolina adigana qaadatid ina aniga qaatana ha ii ogolaanin ma garatay marka walaal faafi oo si shargare ilaa aynu ka gaarno dadkaasiti horjoogayaasha inoo ah magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Cabdullaahi waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden inta aynu program sidan oo kale ah aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa warsan iyo weersan